nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno waxaa la ogsoon yahay in dhallinyaradu ay tahay qaybta bulshada ee ugu badan qaybaha bulshada ee dalkeenna sidaasi daraaddeed adeeg bixinta tabarucaadka ay dhallinyaradu fidinayaan ayaa ka mid ah waaxaha ugu waaweyn ee dhallinyaradu iyagoo si habsami leh uga qayb qaadanayo dhaqdhaqaaqyada horumarineed iyo kuwa dhismaha nidaamka dimuquraadiyadda ee heer dal iyo heer deegaan ayaa ah siday uga faa'iidaysan lahaayeen adeegga tabarucaadka ay dhallinyaradu mujtamaca u fidinayaan ma aha inay xooggooga horumarineed ee diin aqoontooda khibraddooda waayo aragnimadooda ugu deeqaan bulshada oo keliya balse maadaama uu tabarucaadku yahay aalad muhiim gaar u leh shacabka deegaanka kaasoo faa'iido gaara u leh bulshada qiyimka midow qowmiyadeed iyo faa'iidada dhanka dhaqanka ayaa waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan adeegga tabarucaadka ay dhallinyaradu bixinayaan uu noqdo mid lagu fulinayo qaab daraasaad oo qorshaysan in dhallinyaradu ay ka qayb galaan baraar weyn u lahaadaan dhisidda nidaamka dimuquraadiyadeed iyo maamulka suuban iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada dhaqaale bulshada horumarinta dhaqaalaha sidoo kalena ay sida ugu habboon uga faa'iidaystaan natiijooyinka ka dhasha dadaalkooda haddaba si looga midho dhaliyo qorshaha ayaa waxaa dhammaan gobollada iyo maamul magaalooyinka dawladda deegaanka soomaalida loo kala diray kooxa gaadhsiinayo jihooyinka qorshaha shaqo ee sannadka dhallinyaradu ay samaynayso xilliyada fasaxa ee labada bilood ee xagaaga si guud waxaa deegaanka laga wadaa shaqooyin tabarucaada ama isxilqaana ay dhallinyaradu fulinayaan labada bilood ee xagaaga ah hamle iyo naxaase ee tirsiga taariikhda Itoobiya maanta dhulbeeristaan ku sameynay dugsiga sare ee degmada Mooyaale waxaan leeyahay si fiican ay ka soo qayb qaateen dhalinyaraduna waana sii wadi doonaa dadaalkii loo waday dhalinyarada inay sii dhaadhiciyaan heer qabale inay halkii laga wadi doono insha Allah qaybaha kale waxa la socday dhiib shubisna la sameyn doono insha Allah iyo nadaafada laga qayb gali doona wax walba wadi doona insha Allah iyo wacyigelinta COVID-19 cudurkan oo deegaanka ama dalka dhan habsami ka dhigay oo qorshaha dhaqaale iyo wax walba dib u dhacay waxaana si garab taagan doona dawladda iyo xisbiga inaan la shaqeyno ma aragtay wacyigelin iyo dhulbeeris iyo wax walba la qabanno insha Allah shaqooyinka ayaa kuwa dhalinyaradu bulshada ugu huraan waqtigooga muruqooga maskaxdooda iyo dhiigoodaba qorshaha tabarucaadka ama isxilqaam ee sanadkan ayaa mid ka duwan gebi ahaanba kuwii hore waxaa jira sanadkan xanuunka saamaynta badan ku haya dunida iyo dalkeennaba ee COVID-19 kaasoo guud ahaanba beddelay hannaankii geeddi-socodka shaqada waxaana meesha ka saaray mid ka mida shaqooyinkii ay qaban jireen dhallinyaradu xilliga xagaaga waxayna ahayd howlihii tabarucaadka ee dhanka waxbarashada ay dhallinyaradu jaamacadaha siin jireen ardayda dugsiyada taas beddelkeedana waxaa la soo saaray in dhallinyaradu si isxilqaana kaga qayb galaan ololaha wacyigelinta ee cudurka COVID-19 ilaa maalintii uu soo galay dalkeenna ilaa iyo haddana dhallinyaradu horumar ayay ka wadaa dhallinyaradu waxay ka samaynayaan wacyigelin kala duwan oo la xidhiidha dhanka cudurka COVID-19 sidii faafinta iyo waxyeeladiisa loogu baraarujin lahaa bulshada waxaan ugu talagalay inaan waqtiganada qayb ka mid ah aan u hurno bulshada si aan u siino awareness ama wacyigelin ku saabsan
saamaynta uu yeelan karayo cudurkan COVID-19 ee caalamka saameeyay. waa in iyadoo loo howlgalayo sidii dhallinyarada oo dhan bilaha fasaxa ee sanadkan bixinayeen adeegga tabarucaad uga fogaan lahaayeen meelaha waqti lumiska ah maadaama hawshani ay tahay mid iyaga oo si habsamila uga faa'iidaysanayaan xooggooda aqoontooda khibraddooda iyo waayo aragnimadooda ayaa doorka kaga aadan ka qayb qaadanayaan qorshaha horumarinta ay dawladdu u dejisay bulshada. bismillaah magacaygu waa Bashaar Asad Cabdullaahi waxaan ahay afhayeenka ururka Taakulo. dhalinyarta waxay ka shaqaynaysay maxaan ku dhahdaayay bilicda deegaanka isla markaana waxay rinjiyo maxaan ku dhahdaayay shaqooyin ka waday highwayga maamulka magaalada Jigjiga qayb kamid ah. marka ururku waxyaabaha uu hadda uu ku hiigsanayo inuu qabto kulli waxa kamid ah inuu bilicda uu ka qayb qaato deegaanka meel kasta ay noqoto haday noqoto in qashin la qaado haday noqoto in wax la rinjiyeeyo iyo haday noqoto in wax la bixiyo ama tabarucaad ha noqoto ama dhiirigelin ha noqoto ururku hadda wuxuu u socdaa inuu maxaan ku dhahdaayay wax walba oo ka jira deegaanka iyada oo la raacayo jihooyinka iyo qorshaha guud ee fulinta barnaamijka howlaha tabarucaadka ee sanad fasaxeedka ayaa waxaa dhammaan degmo walba laga sameeyey markii la tegey xalfadda furisa oo howlaha tabarucaadka iyadoo isla markaasina la soo bandhigayay qorshaha loo dejiyay sanad miisaaniyadkan 2013 inay kaga qayb qaataan barnaamijkan waxaana dhammaan degmooyinka laga soo dhisay guddiga xiriirka tabarucaadka ee heer degmo heer gobol iyo heer maamul magaalo waxaana dhammaan la qabtay fagaarayaasha lagu dhisayo guddiga xiriirka howlaha tabarucaadka ee heerarka kala duwan ee maamulka waxaa si muuqata loo dejiyey loona daafuray shaqooyinka iyadoo goob kastoo ay u marayeen xubnaha ka socday heer deegaan lagana dhaqaajiyey shaqooyinka iyagoo maamulka gobollada la siinayo jihooyinka shaqada lagu dhaadhicinayo si wada jir ah ayaa halkan waxaan ku sugnahay guriga madadaalada dhalinyarada ama aqalka dhalinyarada gurigani wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan gaar ahaan tan ugu weyn uu bixiya waa DSTV-ga dhalinyarada si ay u sameeyaan dhaqan celin loogu sameeyo gurigani waxaa naga caawiyey anagoo maamulka degmada la kaashanayna iyo xisbigeena waxaa noo dhisay hay'adda ay dhahaan ZOA mashruuc RDDP mashruucani waa mashruuc migration ka hortagga dhalinyarada waa mashruuc ku saabsanaa raggii design gareeyaan ka mid ahaa wuxuu ahaa restoration for the hope in rajada dhalinyarada la soo nooleeyo dib loo soo celiyo ilaahay inuu nuu guuleysiyey qabadkiya dhiiranaanta dhalinyartii lagaga daydo idibka nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno waxaa sanadkan markii ugu horraysa lagu guulaystay in shaqooyinka isxilqaan ama tabarucaad ku noqdo kuwa leh miisaankooda oo ay mas-uuliyiin heer deegaan ah ay uga baxayaan dhammaan 39 degmo ee deegaanka waxaa la qabtay tababaro lagu fahansiinayo dhallinyarada nooca shaqo ay qabanayaan iyo qaabka ay u qabanayaan taas oo hadda ka hor jirin shaqadan islamarkaasina shaqadan ka dhigi jirtay mid aan midho lahayn waana midda ku timiday dadaalka mas-uuliyiinta xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo hogaaminta sare ee xarunta xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida. halkani daawadayaal waa dugsiga dhexe ee Maxamed Cabdinuur oo ku yaalo xarunta gobolka Afdheer ee magaalada Hargeysa waxaa saaka si rasmi ah looga daafuray ololaha iska wax u qabso ee bilaa xagaaga ee dhalinyaradu qabato oo guud ahaan ka socdo dalka iyo deegaanka Soomaalida waxaana dabcan ololahan saaka lagu daafuray dhirbeeris kala duwan oo laga sameeyay dugsigan aan dhex joogno oo hormuud ka ahayd dhalinyarada ee magaalada Hargeysa oo ka qayb qaadatay ololahan dhirbeerista ee lagu cagaarinayo ku dhawaad 7,000 oo dhalinyaro oo iskugu jirto lab iyo dhidig ayaa la filayay inay ka qayb qaadan doonaan hawlaha iska wax u qabso ee guud ahaan ka socda dalka iyo deegaankaba gaar ahaan gobolka Afdheer waxaana dabcan uu yahay wajigii koobaad iyadoo degmooyinka loo dhaadhicin doono ololahan iska wax u qabso dhulbeeris fiican baan maanta halkan nooga qabsoontay marka dugsiga hoose dhexe ee degmada Hargeysa marka aad baan waxa weeyaan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka waxa weeyaan ee dhammaan sida farxadda leh maartay dhammaan ka dhalinyarada horaan waxyaalo badan soo qabanay jiro sida cudurka dunida baahiyay ee COVID-19 ka on wacyigelin badan bulshada ka sameeyay haday tahay qabaliyada iyo haday tahay degmadaba taasoo aan la garab taagnan maamulka xisbiga EPP iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan qabadkiya dhiiranaanta dhalinyartii lagaga daydo idibka nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno
waxaana ololo nadaafad laga fuliyey guud ahaan 12 gobol iyo 6 maamul magaalo iyadoo ay ka qayb galayaan dhalinyarada adeegyada taageerada dadka tabaalaysan ee danyarta ah adeega talinta iyo bandhigida rabitaanka oo ku salaysan cudurka HIV/AIDS-ka qabadkiya dhiiranaanta dhalinyartii lagaga daydo midibka nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno howlahan tabarucaadka ah ee bilaa xagaaga ee sanadkii 2012 caqabadihii lala kulmay waxaa ka mid ahaa qiimaynta degmooyinka ka socotay islamarkaasina adkaatay in sidii loo baahnaa loo helo maamulka degmooyinka gaar ahaan gobolka Dhaawa wadooyinka oo aad u liita islamarkaasina rafaad badan lagala kulmay gaar ahaan buundada isku xidha Liibaan iyo Dhaawa bangiga dhiigga oo aan ka jirin degmooyinka isku xidhlaanta dhalinyarada iyo maamulka oo aad u liidato waqtiga kooban iyo goobaha laga shaqeynayo oo aad u kala fog gaadiidka oo aan ku filayn xubnaha ka socday heer deegaan ee tagayay degmooyinka iyo gobolada dawladda deegaanka Soomaalida wadayaal hadda waxaan u gudubnay gobolka Dhaawa waxaana ka soo gudubnay wabigii weynaa ee gobolka Dhaawa dabcan wabigan boondadii loo maray jiray awal hadda way go'an tahay saas daraadeed waxa dabcinta badan dadku ku dhaafayaan oo anaga noo fududeysa inaan galabta u ruqaansano gobolka Dhaawa doonta yar oo dabcan dhalinyaro isku xilqaantay oo sameysteen oo gacan ku sameeysa qabadkiya dhiiranaanta dhalinyartii lagaga daydo midibka nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno qabadkiya dhiiranaanta dhalinyartii lagaga daydo midibka nabadana adkaysa dhammaanteen intaan ahaano bulshada dhaxalaan u reebno wadaniga dhulkiisa hooyo intiya gulufkaba ka dhowra soomaalinimadana ku dhaarta horuna dheeriya asteeya taariikhda dhaxalka reebta wadaniga dhulkiisa hooyo intiya gulufkaba ka dhowra soomaalinimadana ku dhaarta horuna dheeriya asteeya taariikhda dhaxalka reebta dhaqaale si aan ugaadhno dadkuna saboolka u dhaafa dhalanteedii hadal bilaasha waqtigu nagu dhaafi maayo dhaqaale si aan ugaadhno dadkuna saboolka u dhaafa dhalanteedii hadal bilaasha waqtigu nagu dhaafi maayo wayahaya dhacdooyinkiisa duruus baa laga dhigtaaye dhalinyaro waxaan nahay dalkooda inay dhisayaan ku dhaarto nabada dheeliga u diiday ku dhaarto nabada dheeliga u diiday wayahaya dhacdooyinkiisa duruus baa laga dhigtaaye dhalinyaro waxaan nahay dalkooda inay dhisayaan ku dhaarto nabada dheeliga u diiday ku dhaarto nabada dheeliga u diiday haybada iyo dhalashadeena dhagxumo igaarsan mayno dhaxdinta waa lagu lumaaye dalkeenna intaan ka dhoofno shisheeye shisheeye isu dhiibi mayno haybada iyo dhalashadeena dhagxumo igaarsan mayno dhaxdinta waa lagu lumaaye dalkeenna intaan ka dhoofno shisheeye shisheeye isu dhiibi mayno
ruuxana dadka kala maraya midnimadana dhaawacaya qabyaalad kala dhimasho keenta marnaba ka dhagaysan mayno dastuurka uu dhigan dalkeena ku dhaqankiisa habboone dhanaba uga leexan mayno dhismaha qarankiyo sinnaanta cadaalada la heli mayno geesta kale waxaa howlahan barbar socday dhallinyarada kale ee sidii iskeeda isku xilqaantay ee howlaha samafalka ka shaqaynaysay siman waxay ka mid tahay dadka ku caanbaxay samafalka iyo taakulaynta dadka dhibaataysan عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan dhammaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta gaar ahaan walaalaha Soomaaliyeed ee adduunka daafihiisa kala jooga in ay soo caawiyaan wiilkan yarka ah wiilkan magaciisa waa Caamir Lixle 17 sano ayuu jiraa 7 sano oo kamid ah waqtigiisa mar walba ahaa lugta darteed 7 sano ka hor ayaa lugta laga qabtay Caamir weligii yaalihii muuna helin dhakhtar inuu tago duruufo dhaqaale oo jira iyo meesha uu jiray oo ahayd baadiye aad u fog maanta inaan idinkaga farxiyo oo idinku bishaareeyo qofkan agtayga taagan waa Caamir Lixle waa wiilkii yaraa ee ka soo qaadnay qabalaha Cumar Doon ee gobolka Shabeelle Caamir 7 sano ayuu xanuunsanayay oo lugta maralka ahaa isla markaana duruufo dhaqaale oo jira awgood uu dhakhtar u helin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa noo suurtageliyay inaan soo qaadno oon keeno magaalada Jigjiga oo dhakhtarka referaalka dhaqaatiirta markay noo sheegeen inayna dhakhtarku lahayn dawo kala goyn mooyaane inaanu halka kaga jarno caafimaadna uu ilaahay ugu bedelay waxaan rabaa halkan maanta aan ugu talagalay inaan u mahadnaqo dadkii soo caawiyay Caamir dal iyo dibadba gaar ahaan dadkii qurba joogta ahaa ee Caamir u hagar baxay ee hadiye habeen ila soo hadlay xaaladiisa iga wareysanayay isla markaana soo caawiyay ee u soo diray lacagaha oo Caamir maanta ay sabab u noqotay inuu maanta taagan yahay oo caafimaad qabo lugtii muddada dheer uu la rafaadsanaana oo Ilaahay ka caafiyay waxaana ay tagtay qaar ka mid ah gobollada dawladda deegaanka Soomaalida iyadoona halkaas ka soo qaaday dad tabaalaysan oo u baahnaa gargaar in loo fidiyo ugu dambeyntiina qaar badan way ku guulaysatay halka qaar kalena ay tira buu imatay siman waxay ka mid tahay dhallinyarada hormuudka u ah dhanka samafalka ee sanadkii tagay ee 2012 marka la fiiriyo dadaalada ay muujisay wallaahi samafalka waxaan ku soo jiray muddo 2 sanadooda alxamdulilah rabbil caalamiin kiisas badan baa ii suurtagalay qaarna weli way socdaan qaarna way suurtageli waayeen waxyaabihii ii suurtageli waayay waxaa ka mid ahaa gabadh aan muddo dhowr bilood awaday oo kansar jirkeeda oo dhan ku faafay oo aan ka soo qaaday qabalaha daaqato ee degmada Baabili gabadhaas herar baan geeyey Jigjigaan keenay Addis Ababa baan geeyey dhaqaatiirta ayaa noo cadeeyay inaan waxba laga qaban karin oo ku celino meeshii laga keenay oo daaqato ahayd kabacdina qadartii baa u timid way geeriyootay waxayna ka mid ahayd fiidiyoyadii ugu xanuunka badnaa gabadhaasi howlaha tabarucaadka ee bilaa xagaaga ee dhallinyaradu qabato ee sanadkan 2012 ayaa waxaa la qabtay munaasabad lagu soo afmeeraya isla markaasina lagu abaalmarinayo dhallinyaradii kaalmaha hore ka gashay iyo weliba sidoo kale shakhsiyaadkii ugu fiicna ritaankii munaasabadan oo lagu qabtay madasha kulamada ee qaryaandhoodan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar mas'uuliyiinta xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha ururada ka qayb qaatay howlaha tabarucaadka ee 2 bilood ee xagaaga munaasabadan ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah degmooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ee sida fiican uga qayb qaatay howlaha tabarucaadka ee sanadkii 2012 waxaana ugu horeyn